waxaa si isdaba joog ah loogu dhegayaa gudaha dalkani Koonfur Afrika xaflada lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya iyo isbedelka cusub ee dalka ka dhashay. xaflad siyar sare loo soo agaasimay laguna taageerayay madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhacday gobolka Libombo ee dalkani Koonfur Afrika. xafladan ay soo camireen bulshada reer Libombo qaybaheeda kala gadisan ayaa waxaa madasha ka hadlay marti sharaftii ka soo qayb gashay waxayna dhamaantood u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. haddaba gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Board ee gobolkaasi Maxamed Xasan Ceemo iyo xoghayaha arrimaha bulshada ee jaaliyada gobolkaasi Daahir Hilowle Xasan oo loo yaqaano Daahir Carab ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha. waxaan rabaa inaan ka hadlo kaliya arrimaha bulshada sida aan u joogno South Africa ama Limpopo. waxaan rabaa inaan wax ka dhaho Soomaalida ku nool South Africa gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Limpopo inay si fiican ula dhaqmaan dadka ay la nool yihiin markuu horeysa. sida kuwa South Africa tusaale ahaan qofka haysta meel ganacsi ama meel kale ama uu la degan yahay waa inuu xiriir fiican la leeyahay dadka uu ku ganacsanayo ama uu degan yahay. waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo. waxaa kaloo xusid mudan dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo heerkan wadankeena soo gaarsiiyay muddo dheer kadib in dalkeena gudihiisa doorasho la I would like to greet every person who is here, but we as the South Africans, we have got our way of greetings. And please, in Spain we say xafladan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Somali Community Board ee gobolkaasi ayaa aad loogu soo dhaweeyay isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee u xuratay ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ee gobolka reer Libombo ayaa ka warsugaya in madaxweynuhu dhawaan doorto ra'iisul wasaare cusub oo u qalma xilkaasi. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa.